waxaanu xoogga saari doonaa arrimaha ammaanka caasimadda hagaajinta iyo horumarinta adeegyada bulshada aasaasi u ah dib u dhiska iyo soo celinta bilicdii caasimaddu lahayd isagoo jeedinaya khudbadiisii ugu horeysay gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Mungaab waxyaabaha uu ballan qaaday waxa kamid ah inuu wax ka qaban doono soo celinta bilicda caasimadda Soomaaliya 6 bil kadib maxaa ka soo rogalay khudbada gudoomiyaha gobolka Banaadir halkan waa wadada Maka al-Mukarrama oo muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha waxa sidoo kale wadadan isticmaala gaadiidka madaxda dawladda markuu uu roob ka da'o magaalada Muqdisho isbedel sidee ah ayaa wadadan ku yimaada dhibaato ceenkay ah ayay ku qabaan gaadiidka dadweynaha waa kan Cabdullaahi Ciise Maxamed oo ah mid kamid ah darawalada kaxeeya gaadiidka dadweynaha waxa wada gaadiidka dadweynaha dib badan ku qabnaa wadada biyaha ku jira samaa fali si ma saa u shaqeynaa wadadii kala socodkeedii shaqada waa nagu xun yahay waxaan ka codsanaynaa maamulka gobolka Banaadir inuu naga habeeyo wadada iyo samaa falaha talsan 100% maamulku waa fiicnaa samaa falaha iyo hawshii waa socota hadda dib dhaca ku dhacay roobku markuu laami dhaxaysa baabuurta biyana wajida mar baabuurta waa iska dhignaa mar baabuurta wax yarmaan laamiyaashii la dhisay oo laamigii la dhistay biyo waa fariisanaa sidii hore ay wadooyinka in maamulku dib habeen ku sameeyo wadooyinka iyo samaa falaha maamulkii hore ee gobolka Banaadir ayaa ku guuleystay in Muqdisho lagu soo kordhiyo leerarka ku shaqeeya cadceedda qoraxda ee nalalka kala haga gaadiidka kaas oo ay Soomaalidu u taqaano samaafaro badankood leerar ku shaqeeya cadceedda qoraxda ee lagu dhajiyo wadooyinka Muqdisho ayaan hadda shaqeyn kadib cilada ku yimid waxa sidoo kale halaysan samaafarayaasha lagu dhajiyo wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho waa kuwan qaar kamid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho arrimahaas ku eedeeyay madaxda maamulka gobolka Banaadir iyagoo sheegay in gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Mungaab uusan arrimahaas waxba ka qaban abtan Maxamed Jajab waxa yaala wajidan waa qashin aad iyo aad u fara badan yani waxa dareemi karaysaa in yani qashinkan uu dhibaato weyn ka iman karayo goobtan ku ganacsanayna waa qaybin shidaalka ee aan ka iibinaynay gawaarida noocyadooda kala duwan marka waxaan dawladda ka codsan lahayn maadaama qaybin Turkiga naga qaadi jireen qashinka nadaafadiisa ay noo dhoori jireen waxaan gudoomiyaha degmada Axmed Jajab iyo gudoomiyaha Waaberi aan ka codsanaynaa inay naga qaadaan qashinka ay naga fogeeyaan ay geeyaan meelaha ku habboon qashinka in laga qaadan rabnaa wasaqdan waa ku rafaadnay shuban biyood dhibaato dhiban ku qabnaa ana laga qaado aad iyo aad waayii hore waayii dhaxlaasa waxa jiray qoladan Turkiga oo ay sameeyay jireen gawaaridooda ama nadaafadahan sameeyay jiray maalmahan dambana oo gaabis uu ku yimid looga baahan yahay inay wax ka qabtaan maamulada ama madaxda degmooyinka gobolka Banaadir in ay culays saaraan taasi oo jirto in macnaha ay jirto nadaafad darrada magaalada Muqdisho deegaanka la nadaafada deegaanka waxa kala boqolkiiba iyo soo wanaagsaneyn oo ay u baahan tahay in macnaha kala si wanaagsan loo nadaafo Xasan Maxamed Xuseen Mungaab gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku yimid go'aan madaxweyne waxaana muddada kooban uu xilka hayay u soo gashay waxyaabo badan oo kamid ahaa ballanqaadii uu hore u jeediyay iyagoo dhinaca kale ay jiraan dhaliilo gudoomiyaha kaga imaanaya dadweynaha Muqdisho oo ku aadan in madaxda dawladda hoose ay ka gaabisay ololaha isdhaxgalka Muqdisho arrimaha nadaafadda iyo soo celinta bilicda caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho Aways Maxamuud Jilco Royal TV Muqdisho